haweenweynaha iyo dhammaan dhalinyarada musharax xildhibaan Axmed Naasir Xuseen dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii caawa farxad bay ii tahay Axmed Naasir Xuseen cigaal inaan xafladiisa ka soo qayb galo oo munaasabad runtii aad iyo aad xasuus badan quluubtayda iyo qalbigayga ku reebaysa haldoorkii iyo mujaahidiintii uu ka mid ahaa maxamed muuse ee aabihii iska barbar dagaalamayeen ayaa taariikhdii aabihii ka warramay halkaa ku noqon maayo waxaan leeyahay maxamed muuse maanta booskii aabihii baad ku jirtaa mar haddii aad aabihii ka barbar dagaalamaysay oo uu dhinacaaga ku dhintay Axmed Naasir Xuseen gacantaad qabanaysaa maxamedow shiikhna waxaan leeyahay maanta waxaa laydin xulay oo xisbiga kulmiye idin xulay oo ay iminka horraantoodii soo bandhigeen dhalinyaro aqoon-yahanna ah oo uu ka mid yahay Axmed Naasir Xuseen kanaynu caawa xafladiisa aynu joogno Ismaaciil Xuseen oo isaguna habeen dhaweytoole aynu xafladiisii qabsannay dhammaantiin iyo musharaxiinta ka dambayn doonaba doorkan waxaan jecelahay xisbiga kulmiye wuxuu soo qadimay haldoor iyo dhalinyaro aan jecelahay inay wax badan ka beddelayaan oo ay hayaankii iyo hoggaankii dhalinyarada ay halkaa ka sii wadayaan insha Allah bismillaah kariim sheekh waxaan jecelahay inay u hiiliyaan horumarka iyo hayaanka tubtiisa haysta dardaarankeenu waa xisbiga midnimada iyo cadaaladda ee kulmiyaynu u codaynaynaa kulmiyaynu isbarbar taagaynaa codkayna kulmiyaynu siinaynaa waxaan jecelahay inaan kelmatayn ka idhaahdo taariikhdii iyo xusuustii ay inagu lahaayeen golihii deegaanka ee ay beddelayaan golahani golihii deegaanka ee golahani beddelayaan maxay ku suntan yihiin golihii deegaanka ee ay golahan iminka aynu u dabaaldegayna caawa Axmed ka mid yahay haddii insha Allah uu guulaysto waxay ku suntanaayeen oo ama ay xilkii ay la wareegeen oo ay golihii ka horreeyey kala wareegeen shiikh oo bilaa wadda ah maanta shiikh waxay leedahay intaas oo laami waxa taariikhda ay u galaysaa golaha deegaanka ee uu hogaaminayo Ibraahim Cabdilaahi Cabsiye golahani waxay ku suntanaayeen shiikh oo ka cabanaysa leyd maanta waxay ka cabanaysaa leyd ka caban maysa waxay ka cabanaysaa waa lacag leyd kale waxa ay ka qabteen wax fiican insha Allah bismillaah kariim golahani waxa ay horusocod iyo horumar ka sameeyeen biyaha golahani waxa ay magaranaysaa wax ka qabteen caafimaadka golahani waxa ay dhiseen garoon caalami ah oo heer caalami ah oo si fiican loo qalabeeyay dhammaan qodobada waxa ku suntan oo ay taariikhda u galaysaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo golihiisa aad iyo aad baan u ammaanayaa una hambalyeeyaa mayor Ibraahim Cabdilaahi Cabsiye waxa aan jecelahay oo aan doonayaa inaan halkan ka xuso mayorka magaalada Sheekh in loogu magac daro garoonka sidii loogu magac daray mayor Cabdallaba alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دمان مرتشرفتا حلبانكا عقاشا odayaasha qof kasta waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo mudanta golahan ku fadhiyo marka koobaad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iska leh inoo suurtageliyey inaan caawa xafladdan isugu nimaadno innagoo ku shaacinayna oo ku sheegayna oo ku shirabayna musharax Axmed Naasir Xuseen cigaal Soomaalidu waxay tiraahdaa qofkaas jabad ma la degtay jidin ma la cuntay jid ma wada marteen reer Sheekh caawa waxaan soo jeedin lahaa 3 qodob baa inay ku doortaan Axmed Naasir wata koobaad Axmed Naasir isagoon xildhibaan ahayn isagoon musharax ahayn ayuu wuxuu ahaa inuu ka shaqeeyo hawlaha horumarinta ee ka socda degmada Sheekh hadday noqoto librariga hadday noqoto xabaalaha hadday noqoto ciyaaraha hadday noqoto sportiska sidaa darteed Axmed Naasir wuxuu mutaystay in la sharaxo
oo dhiigga cusub ee aynu doonayno doorkan in shiikh laga sharxo in loo qalmo doorkaas ayaan soo jeedin lahaa talabaad ee axmed naasir uu ku mutaystay inuu u soo istaago xilkan waxa weeyaan aabbihii allaha u naxariisto naasir waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii uu shahiiday inay xoreeyaan dalkooda somalilan taasna axmed naasir wuxuu ku mutaystay inuu isu soo taago booskan ta saddexaad ee axmed naasir waxa weeyaan uu u mutaystay waxa weeyaan waa nin dhallinyaro ah waa nin firfircoon waa nin ehel cibaado ah runtii waxaan codsan lahaa axmed naasir in codka la siiyo doorashadii u dambaysay ee kursiga lagu saaray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi axmed naasir waan wada shaqaynay halkaanigu markaan ahaa guddoomiyihii kambeynka ee degmada shiikh axmed naasir wuxuu ahaa guddoomiyihii garabka dhallinyarada waxaan odhan karaa codkii ugu badnaa ee xisbiga kulmiya uu ka helay degmada shiikh sabab waxa uu ahaa dadaalkii iyo juhdigii dheeraa ee labada habeen iyo labada maalmood aanu ku wareegaynay ee axmed naasir uu ka mid ahaa qodobadaasina waxay ka mid yihiin kuwa aynu u madshiranayno axmed naasir in codka la siiyo waxaan xasuustaa habeenkii la soo diray liiska musharaxiinta ee xisbiga kulmiyeed degmada shiikh ayaa aniga iyo nin la yidhaahdo sacad cilmi guuleed oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiyeed degmada gobolka saaxil oo hudheel wada fadhina ayaa waxaa loo soo diray liiskii xisbiga kulmiye ee degmada shiikh waxaa ku jiray axmed naasir waxaa ku jiray foosi cuqla intaan ka xasuusto markaas muu garanayninoo deedna wuxuu igu yidhi khadarow bal liiskan lay soo diray yaad ka garanaysaa raggii habeenkaa afarta aan ku fiiqay ee aan idhi waxa weeyaan ragga u mudan inay degmada shiikh loo soo xulo runtii waxaa ka mid ahaa axmed naasir liiskaa hore habeenkaa hore ismaaciil xabeeb kumuu jirin oo waxa weeyaan laakiinse markii dambe lagu soo daray laakiin dugsiye foosi cuqla nimo fara badan bay ahaayeen calaa kulli xaal waxaan ku soo gebagabaynayaa maadaamuu ahaa axmed naasir ninka astaamaha noocaa leh aabbihii mujaahidka ahaa xisbiga kulmiye u soo ololeeyey degmada shiikh ka shaqeeya ah nin firfircoon naftayda iyo nafihiinaba waxaan kula dardaarmayaa axmed naasir aynu codka siino oo aynu ka dhigno golaha deegaanka ee soo socda ee aynu doonayno inay degmada shiikh maxay ahayd tolay dhig isugu shubaan dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa dhammaan halkan inagula sugan iyo dadweynaha bartan taagan iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada ka soo qayb galay xafladda axmed naasir xuseen ee uu ugu sharaxan yahay golaha deegaanka degmada shiikh anigu labada erey aan odhanayaa waxa weeyaan anigoo ku hadlaya axmed naasir waxa uu ahaa nimaannu isku kalaasnahay isku marcaamad ahayn axmed naasir tilmaan aan reer shiikh uga sheegayaa ma jirto oo dabeecaddiisa iyo dadnimadiisa ayaa reer shiikh bartay keliya wuxuu baan idin sii farayaa axmed naasir wuu u qalmaa halkaynu u eegmanay ee aynu ugu codayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay dembigeenna iyo kii waalidkeenna baan ha dhaafo kolley maanta ka axmed ahaan waxaa ii sharafa inaan ka soo qayb galo saaxiib aad iigu qaaliya axmed naasir xuseen cigaal si kalena haddaan u dhigo waa ina hinda daahir kaahin malaa badankiinnu aad uma taqaanin baan u malaynayaa run ahaantii shiikh wakhtigan marka ay doorashooyinkani sidan u soo dhowaadeen waxa yaro muhiima in la yaro kala caddeeyo halkay shiikh ka dhaqaaqaysaa halkayse u socotaa dadka se jooga halkay u rari karaan magaaladan kolley waxaa lama huraana in la yaro xaqiijiyo qofka xildhibaan loo doortaa waa qof maxay laga rabo axmed naasir xuseen waxaan maanta anigu halkan uga soo qayb galay bandhigiisan oo aan raalli kaga ahay inuu sheekh u tartamo taa macnaheedu waxa weeye axmed u dooran mayno kursi golo deegaan oo uu saacaduu doono ka maqnaado sidii hore loo arki jiray kursi golo deegaan oo uu dhowr bilood iyo sannado bilood sida ragga qaar aynu ku naqaanno ay dee xilkii ummadda dee meherada ay leeyihiin axmed meheraduu leeyahay axmed uma dooranayno taa dabadeed
axmed mid baan ku aqaana anigu isaga iyo ina xabeeb oo kollay wiigii hore malaa la soo bandhigay waxaan filayaa inay yihiin rag ka soo bixi karaya hogaaminta masiirka ummadda qofku mid buu xaq u leeyahay dadka qaar baa waxay idhaahdaan muxuu isku soo sharaxayaa qofkani muxuu doonayaa halkuu ku socdaa ma isagaa adduun wax noocaasa bay ka sheekeeyaan mararka qaar bay naftu qofka ku riixaysaa si isbeddel u yimaado inuu isagu naftiisa biimeeyo oo aanu qofku baqin isbeddelka ilaahay baa haya dee sida u dhacaysa arrimaha qaarkood waxaan runtii kollayeen dabeecadaha aan jecelahay inaan idiin sheego axmed aan isleeyahay kollay shiikh hadduu golo deegaan ku soo baxo uu ku mateli karaa waxa weeye kuma aqaan anigu nin meesha u doontay xoolo kuma aqaan nin guri doonaya kuma aqaan nin jees yaro hoose ama qaar cadhaysan meesha u tegaya oo matelaya waxaan anigu axmed ku aqaanaa nin xora inta maanta halkeennan joogtaa intii xor tahayd weeyaan saan u fahmaya anigu waayo ee caqliga xortaa iyo fikirka xortaa leh ee damacoodu gaar u yahay run ahaantii dee kolley axmed wakaa isa soo bandhigay dadka reer shiikh ee dee aniguba kolley aan ka tirsanahay sida ilaahayna aanu ka rajaynayno allah inoo rumeeyo riyadeenni codka aynu ugu hogarbaxno codka oo aynu ugu hiilino sababtoo ah dee challengeeskii iyo caqabadihii ay magaalada soo gaadhsiiyeen ama waxqabadkii ay gaadhi kari waayeen dee raggii hore maanta way muuqdaanoo way cad yihiin baadidu markay muuqataa la dooran karayaa baan filaya anigu waayo qof aan la garanayn meel uu socdaa dee waxba ma raadiyo kolley waxbay hadalka badin maayo insha allah bilmillaahi kariim xafladdaa maanta aynu joogno teeda waxaan filayaa in ay noqon doonto iyagoo dhaarinta labaad ee xildhibaanada aynu halkaas isugu nimaadno biidnillaahi kariim marka guul baynu rajaynaynaa insha allah bilmillaahi kariim assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu